السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 5 waxyaabood oo run ahaantii haddii aad samaysid dadku kugu nacayaan. Waxay nicitaanku bilaamaysaa marka arrimahan aan inoo bilaabi doono aad uga badbadisid. Nolosha adduunku hadba waasi waxaa dhacda marar aad u badan oo intaan arrimo badan qorsheysano ay arrimahaasi sidii qorshaha aynu ugu talagalay ay noqon waayaan. haddaba dadku laba u qaybsamaan labada mid waxa weeye mid markii arrintii sidii uu wax u qorshaystay ay u noqon weydo aan isdhiibin oo bilaaba inuu keeno xalal kale oo arrintaas ku samayn karo. midina waa mid isdhiiba oo halkii uu xal ka raadin lahaa ayaa waxa uu bilaabaa inuu naftiisa canaansho. oraha ayaa jirta oo nin filosofi yidhi orahdaasoo odhanaysa muhiim ma aha waxa kugu dhaca, muhiimadu waxa weeye sidii aad uga falcelin lahayd waxa kugu dhacay. taasoo micnaheedu tahay haddii wixii aad qorshaysatay ay ku noqon weyday sidii aad doonaysay inaadan haba yaraatay isdhiibin oo halkii aad iska dhiibi lahayd aad la timaadid fikrado cusub oo aad u fiican. haddii aan u soo noqono fiidiyogeenna 5 qodob waxaa ugu horreeya cabasho badan. haddii waxa aad doonaysay ay kuu suurtageli waayaan wax dhibaataa kuma jirto in qof aad saaxiibatiin ama aad si dhoodiin aad u tagtid oo aad talo weydiisatid. taasi wax dhiba kuma jirto, waana loo baahan yahay. laakiin dhibaatada waxay imanaysaa marka aad cabashada aad u badisid. teeda kale adiga naf ahaantaadaba wax faa'iido oo ay leedahay ma jirto oo aan ka ahayn farxad la'aan. haddii sheegay kasta ay kugu dhacaba aad ka cabatid waxay keeni doontaa in dadku ay kugu nacaan. qodobkeena labaad ayaa ah inaad markasta diiddo qiritaanka khaladaadkaaga. run ahaantii arrintani waa arrin aad u xun. dad ayaad arkaysaa intay khalad kugu sameeyaan aan hababa yaraatay aqoon sida la dhaho igraali ahaw. haddii ay dhacdo in aad khalad samaysay qof ku dhow ha ahaado ama qof ka fog aad ku samayside wax ka fiican ma jiraan in aad qofka raali gelisid runtana aad u sheegtid. diidmada inaad qirato khaladaadkaagu waxay marka dambe keenaysaa in dadkaas ay ka fogaadaan, sababtoo ah markaad mar kasta aad khalad ku samaysid oo aadan khaladka haba yaraatay qiranayn waxaa iman doonta in dadkaasi ay kugu arkaan qof ciyaala oo ay marka dambe halkaas kaaga tegi doonaan, kaaga hadhi doonaan. teeda kale qirasho la'aanta aadan qiranayn khaladaadkaagu waxa ay muujinaysaa inaad tahay qof aan isu kalsoonayn. qodobka saddexaad ayaa ah inaad tahay qof ay dabeecadiisu ku salaysan tahay rajo la'aan. markaan ku leeyahay rajo la'aan waxaan ula jeedaa in aad tahay qof wax kasta dhinaca xun ka eega. cilmi baadhis badan oo la sameeyey kadib waxaa caddaatay in dadka nolosha meesha xun ka eega mar kasta ay noloshooda ku dambayso qoomamayn iyo guuldarro. inaad wax kasta dhinaca xun ka eegtid waxay sababaysaa in marka dambe macadadka kuugu dhow ay kaa fogaadaan. bedelitaanka aad noloshaada ka dhigtid mid wax kasta dhinaca wanaagsan ka eegaysaa keliya kuma saamaynayso, waxa kale oo ay si positive ah u saamaynaysaa dadka kale ee kuugu dhow. qodobka afraad ayaa ah soo daahitaanka mar kasta. qof kastaaba wuu daahaa, laakiin daahitaanka badan ee mar kasta ah waxa uu sababaa in uu dadka kaa fogeeyo. haddii aad tahay qof ay dhibaato ku hayso soo daahitaanka mar kasta waad bedeli kartaa caadadaas xun. qodobka 5aad oona ah kan ugu dambeeya ayaa ah qarinta dareenkaaga. taas micnaheedu maaha in wax kasta oo kugu dhaca noloshaada ku saabsan aad dadka kale la qaybsatid oo waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo aad adiga keliga aad ku soo koobaysid. laakiin waxaan ula jeedaa oo aan ka hadlayaa in aamusnaanta iyo dareenka aad qarinaysaa ay dhibaato u keento xiriirka aad dadka kale la leedahay. dad badan ayaa jira xaqiiqdii oo dhibaato kasta oo haysata isku daya inay iyagu xaliyaan keligood. wax dhibaato ku jirta taasi ma jirto, laakiin waxaad ogaataa in haddii dhibaatooyinku ay kaa bataan oo ay dareemadu kaa xoog weynaadaan in ay kugu ridi doonaan farxad la'aan naftaada ah. haddii aad haysatid qof family ah ama qof saaxiib ah oo kugu dhow wax dhibaato oo haba yaraatee ku jirta ma jirto in aad la qaadatid oo aad u sheegtid dareenkaaga iyo waxaad dareemaysid. waxaa laga yaabaa in aad talo fiican ka heshid qofka familkaaga ama saaxiibkaagaba ah. haddii fiidiyogan uu ku qanciyey fiidiyoyo kale oo noocan oo kalena aad doonaysid waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirtid like subscribe-tana aadan naga ilaawin daawada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.